Cali Ibrahim Rooba ayaa sheegay in la curyaamiyey mustaqbalka shacabka Soomaalida ee ku dhaqan Mandera iyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Wuxuu tusaale u soo qaatay dhibaatada dhanka waxbarashada ee ka jirta Mandera iyo guud ahaan gobolka kadib markii inta badan ay gobolka isaga carareen macallimiintii ka timid gobolada kale ee dalka sababo la xiriira amni darro ka jirta gobolka qaybo badan oo ka tirsan gobolka. Cali Rooba ayaa hadalkani jeediyey xilli qaar ka mid ah goobaha waxbarashada ee deegaanka Mandera ay xiran yihiin oo aan weli dib loo furin sababo ammaan awgood. Wuxuu sheegay in kala bar wadooyinka deegaankaasi Mandera uu isaga madaxa ka yahay ay maamulaan Al-Shabaab, wuxuuna intaa ku daray in shabaabku ay bartilmaameedsadaan gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya deegaankaasi. Xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in aniga oo ah barasaabka dowlad deegaanka Mandera oo aan ahayn qof shacab islamarkaana la ii igmaday inaan maamulo howlaha dowlad deegaanka ayaa waxaan si cad u xaqiijinayaa in ka badan 50% wadooyinka deegaanka ay gacanta ku hayaan oo ay maamulaan Al-Shabaab, ayuu yiri Cali Rooba. Cali Rooba wuxuu sheegay in arrintaasi ay sababtay inuu hakad ku yimaado isu socodka gaadiidka iyo shacabka. Wuxuu ka codsaday madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu ka shaqeeyo sidii xal looga heli lahaa dhibaatada amni darro ee ka jirta deegaanka Mandera. Wuxuu saraakiisha ammaanka ee deegaankaasi iyo guud ahaan kuwa gobolka ku eedeeyay inay dafiraan dhibaatada amni darro ee ka jirta deegaankiisa.